akhyaarta sharafta leh marka hore kusoo dhawaada waxaan ku hormarayaa aydid wariyaasha soomaalida iyo warbaahintaba ma yihiin kuwo ku shaqeeya hab dhexdhexaadnimo oo xirfadaysan waad mahadsan tahay nuur v o ada waa salaamaya saaxiibkay maxamed xaaji oo qadkaygula jirana waan salaamayaa haddaan ka hormaro su-aashaada ama aan ka jawaabo waxaan dhihi karaa haa iyo maya labadaba markaan sidaa leeyahay way jiraan wariyaal iyo saxaafad ku shaqaysa sida sharciga ee dhexdhexaadnimada ah laakiin waxaan dhihi karaa waxaa hadda batay kuwa aan sida dhexdhexaadnimada ah ku shaqaynin danaysiga ama dantooda khaaska ah un ka eega warka ama barnaamijka markaasi ay diyaarinayaan waa sida xaqiiqda ah marka laga hadlayo waxaan tusaale usoo qaadan karaa waxaad arkaysaa website ama idaacad ama telefishon toddobaad ama muddo bil ah iska saaran maamul ama qof shaksiya ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama madaxweyne ha ahaadee ama guddoomiye gobol ha ahaadee iska saaran oo wax un ka sheegaya musuq maasuq waxaasuu sameeyey waxaas ayuu dhacay waxaas ayuu sameeyey waxaasuu hebelu shaqadii ka ceyriyay hebelu keenay toddobaad kadibna aad arkaysid qofkii oo la ammaanayo oo idaacaddii ama telefishinkii ama website-kii uu ammaanayo uu leeyahay waa nin ku shaqeeya si daacadnimo ah waa nin wanaagsan qofkaas ama maamulkaasi waa maamul hagaagsan oo la dhihi karo sidii sharciga ahayd ayuu u shaqeeya taas waxaad ka dheehan kartaa marka in markii horena wax laga doonayay markii dambe wixii laga helayna in la ammaano ay noqotay midada kale saxafiyiinta hadda ka howlgasha warbaahinta soomaaliya intooda badan ayaa la dhihi karaa weliba gaar ahaan kuwa yurub jooga iyo meelaha ka baxsan muqdisho waxay caadaysteen in ay Facebook iyo Twitter iyo isticmaalaan oo ay qof shakhsiya maalin walba ay wax ka sheegaan oo yiraahdaan hebel ayaa musuq maasuqa sameeyay hebel ayaa kan keenay hebel ayaa taasna way ka baxsan tahay sharciga saxaafadda waxaan aaminsanahay marka in saxaafaddu ay inta badan ay hadda u janjeersatay dan shakhsiyadeed ee laga baxay dantii saxaafinimo iyo tii dadweynaha loo hayay intaba waayo waa mahadsan tahay ciidid maxamed xaaji xuseen adiga ma ku raacsan tahay ciidid waxa uu ka sheegay saxafiyiinta Soomaalida ciidid waa salaamaya horta nuur adigana waa ku salaamaya runtii horta arinta uu sheegay ciidid wax badan ayaa ka run ah laakiin oo saxaafadu ilaa xad waxaa jira dhibaatooyin badan oo ku aadan dhinaca dhexdhexaadnimada iyo tabinta warka rasmiga ama saxda ah laakiin waxa ay tahay inaan su'aalo badan isweydiino eedam waxa iska lahaanaya wariyaha mase waxaa lahaanaya tusaale ahaan stationka ama hay-adda uu shaqeeyo ama TV-ga ama idaacadda uu shaqeeyo anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn marka laga soo tago qof isagoo iskiis Facebook wax uu qoro taasi saxaafad ma waa shakhsiyan wax uu qof sameeyay laakiin markii laga hadlo Soomaaliya hay-adaha saxaafadeed waxaad moodaa inay inta badan ka midaysan yihiin inaanay lahayn wax discipline ama waxa loo yaqaano habraac qoran ama ajenda qaran oo ay ku wajahayaan xaaladaha markaas taagan waxaa taas usii weheliya saxaafadda oo dabcan ay la wadaagtaa institutionada kale ee wadanka burburka guud ee baahsan ee wadanka ku dhacay aqoontii ku dhacay nidaamkii ummadda ku dhacay dhaqankii ummadda waxaasoo dhan waxay keenaan in la waayo inuu soo baxo wariye diyaarsan ama ay soo baxaan hay-ad wax saxaafadeed oo diyaarsan waxaasoo dhan markay isbahaysteen marka waxaa timid sida uu sheegayo hadda tusaale ahaan ciidid oo kale waa arrin jirta laakiin waxaan aaminsanahay eedeeda waxaa iskale milkiilayaasha iskale idaacadaha iyo TV-yada khaasatan wariyuhu ma laha waayo wariye isagiiba markii hore aan diyaarsanayn ama aan yacni aad u doonayo inuu helo meel uu ka shaqeeyo ama hay-ad iyo meel uu ka hadlo haddii uu helo fursad dabcan wixii ninkaas iskale idaacadda uu yidhaahdo hala sheego ayaa laga yaabaa qaar badani inay sheegaan marka laga reebo in yar oo maaragtay mabda' leh oo isqabata marka arrintu waxaan u celin lahaa anigu dhinaca maaragtay arrintaas aydi sheeg waxaan u celin lahaa dhinaca hay-aadka saxaafadda aydid waa maqlaysaa maxamed xaaji wuxuu leeyahay eedda inteeda badan waxaa dusha u ridanaya milkiilayaasha ama dadka madaxda ka ah hay-adaha warbaahinta gudaha marka adigu mowqifkaas ma aaminsan tahay waa mahadsan yahay maxamed xaaji wuxuu joogaa Sweden waxaan filayaa wax badan hadda dalka gudihiisa inuusan ka ogeyn maxamed waxaan rabaa inaan u sheego
in laga baxay berigii milkiilayaasha idaacadaha iyo telefishinadu ay monopoly ku haysteen wariyayaasha. hadda waxaa batay idaacadihii ilaa iyo dhowr iyo 20 idaacadood ayaa muqdisho keliya ku taala. gobolada dalka idaacado iyo telefishino ay leeyihiin. haddii maanta wariyuhu uu war keeno ama war lagu qasbo inuu hay-ad ka sheego ama uu qof ka sheego uu yidhaahdo warkan ma ahan mid waafaqsan sharciga saxaafadda, mana doonayo inaa idaacadaada ka aqriyo ama telefishinkaaga, wuxuu helayaa mid kale oo u diyaarsan oo ilaalinaya sharciga islamarkaana u baahan mihnadiisa saxaafadeed. laakiin wariyayaashu iyaga ayaan aaminsanahay inay qayb ka yihiin dhibaatada, waayo aniga qof igu qasbi karahay maanta ma jiro. ama hadda aniga raadi kulmiya aan ka howlgalaa, kama yeelayo agaasimaha idaacadda ama qof kale inuu yidhaahdo qof halkan kacay microfonkan kacay, maba lay dhahayo. laakiin haddii la yidhaahdo aniga ma yeelayo inaan idhaahdo qof hebel saas iyo xadgudubkaasuu galay. waa inaan anigu saxafinimadeyda iyo xirfadeyda aan ku keensadaa wixii sharciya oo berri haddii laygu qabsado aan aaminsanahay inaan u hayo wax sharciya. laakiin waxaana sharci u hayn oo berri haddii laygu qabsado aan ku xirmayo, ma doonayo inaan idaacadaada ka sheego. haddaan idhahdo qof igu qasbaya ma jiro, hadduu diido oo shaqada iga ceriyana waxaa la helayaa idaacado kale iyo telefishino kale. marka wariyuhu isaga ayaa raba, isaga ayaa qofkii inta waxa yidhahda qofkaas waxaas aan ka sheegay ma maqash, wasiir hebel saaxiibkay waaye ma raba inaan warkaas ka sheego, saaxiiba warkaan qof kale u dhiib. ama wasiir hebel waxaan rabaa inaan maanta kala baxo qadka, telefonku iga qaba diiday ama waxbuu isiin diiday ama saasuu iyeeli diiday. wariyaashii ayaa hadda waxaan aaminsanahay milkiilayaasha marka laga soo tago iyaga ayaa ah kuwa dhibaatada iyo in wixii ay doonaan ay iska sheegaan go-aansaday. waxaana taas keenaysa duruufaha dhaqaale ee ay ka doonayaan hay-aadka iyo iyo maamulada iyo sidoo kale wasiirada iyo xildhibaanada iyo ganacsatada intaba ciddii la rabo wax laga sheego. warkaasi waa war ku qotoma in qofkaasi uu helo dan shaksiyadeed ama uu ku doonayo waxyaabo dhibaatooyin oo qofkaasi uu u geystay inuu kaga arbito. waa mahadsantahay saxaafadda Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dabaqooshay u baahan tahay, waxay u baahan tahay in saxafiyiinta tababaro la siiyo, waxay u baahan tahay in yacni la joojiyo weerarka shakhsiyaadka iyo hay-adaha lagu hayo. waa inaad u shaqaysaa sida dhexdhexaadnimada ah iyo sidii aad u baratay saxaafadda. aydid waa runtii dhinaca uu ka eegayo waa fahmi karaa oo waa sax qofku isaga iswada oo iska go-aanka iskale. tusaale ahaan anigu intaan qof ii yimaado lacag isiiyo qof cay ima oran karo dabcan, laakiin hal arrin ayaa ay tahay in la eego. tusaale ahaan qof hebel saaxiib ayaan la ahay ama wasiir hebel saaxiib ayaan la ama sheekada isku kaaya baxda wax ka sheegi mayo lafteedu waxay noqonaysaa arrin ku xiran dan shaksi ah. laakiin waxaa la rabaa wariyo isagoon saaxiibtinimo iyo macrifo iyo waxba eegin in uu ilaaliyo danta guud iyo hadalka yani miisaanka iyo silada la raba in la geliyo hadalkii oo sugan oo sax ah. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. kuwaasna waxay ahaayeen Ciidiid Cabdiraxmaan oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho iyo wariye Maxamed Xaaji Xuseen oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo habeen wanaagsan.